السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baa mahadsantihiin daawadayaal. Clipkeeni hore waxaanu kaga soo hadalnay faa'iidada ay leedahay saliid saytuuntu. Clipka kadib su'aal baa ka dhalatay odhanaysa sidee loo kala garan karaa saliid saytuunta asalka ah iyo dabcan ta aan asalka ahayn. Dariiqooyin badan baa lagu kala gartaa saliid saytuunta asalka ah iyo saliid saytuunta aan asalka ahayn. Dariiqooyinka mid ka mid ah ayaanu qaadanaynaa maanta. Dariiqaasi wuxuu noqonayaa daawade waxaad soo qaadaa laba koob oo yaryar oo kuwa halkan kaaga muuqda oo kale ah sida kuwan kuu muuqda oo kale. Kadibna waxaad soo qaadaa laba saliidood oo saliid saytuun ah oo ah nooca aad is leedahay waa asal iyo nooca aan asalka ahayn. Kadibna waxaad ku shubtaa midkiiba waxoogaa saliid saytuun ah sida kaa ku jirta oo kale. Kaa inta koobkaa ku jirta oo kale ku shub. Midkiiba intaa in la ku shub. kadibna soo qaad warqad yar oo waxaad ku dhajisaa bakeeriga ama koobka aad is leedahay saliid saytuunta asalka ah baa ku jirta ama labadooda midkood ama labada koob midkoodun ku dhaji warqad yar si aad hadhow kala saarto. Inta markaad samayso waxaad ku ridaa talaagada waxaanad sugtaa muddo saacad kadib soo saar labadii koob. Labadii saliidood waxay noqon doonaan sidan caddaan iyo midabka asfarka ah. Saliid saytuunta asalka ah waxay noqon doontaa midabka asfarka ah ta ku jirta koobkaas. Taasoo kale noqon doonta. Isla markaa haddii koobka aad saa u qaado la foorariyo waxba kama daadanayaan. Saliidii waxay noqotay mid adag oo fadhida. Midabkeeduna wuxuu noqday asfar midabkaas. Midabka aad arkaysaan ee mooska aan dul marnay. Ama saliidda kale aan asalka ahayn midabkeedu wuxuu isu bedeli doonaa caddaan marka talaagada lagu rido muddo saacada kadibna laga soo saaro. Isla markaa haddii aad koobka foorariso saliiddii waxay noqonaysaa mid daadanaysa oo aan fadhiisanin ma fadhiisanayso sida ay u fadhiisatay saliid saytuunta asalka ahi markii la geliyey talaagada. Dariiqaas aad ku kala garan kartaa oo ugu dhow. Ilaahay subxaanahu wa tacaala sida saxda ah inoo waafajiyo. Subscribe si ula socotaan casharrada dambe. aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.